kulan waxaan wanaagsan lahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotaa meel walba naga daawanaysaan si walbooda inoo daawanaysaan waqti waxa idin wacnaado qodobada muuqaalka aad ku daawan doontaan hadduu allaha uu dul ogolaadana waxaa kamid ah qabtay Aranjan iyo musharaxdoodii wali u diiday yihiin aqbalaada guushiidani maxay dowladda federaalka Soomaaliya u ballan qaaday odayaasha ka soo jeeda gobolka Awdal wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay Qoryooley qodobadaasi oo kala faahfaahsan ayaan dul istaagi doonaa hadduu allaha uu dul ogolaado surwaada muuqaal sii sheegreeyo meel fogna la gaarsiiya kuma xasanidiina aynu ku bilownay Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa dhawaan markale loo doortay xafiiska hogaamiyaha waxa uu dagaal siyaasadeedkii uu qaraarka la galay koox ay saaxiibo siyaasadeed ahaan jiraan deegaankana saameyn siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid ciidanba ku leh kooxdan waxaa loo yaqaanaa magaca Aranjan doorashadii ugu dambeysay ee Puntland waxayna kooxdani soo sharaxday Xasan Shire Abgaal kooxdu maanay ogoleen in Saciid Deni tartan lagula galo liiska uu soo qortay kaas oo 80% isagu keensaday xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland laakiin musharaxiintii kale oo ogolaaday inay isla liiskaasi kula tartamaan ayaa khasbay Aranjan kooxda ayaa dhibco aad u hooseysa ka keentay doorashadii ugu dambeysay ee Puntland loo ay dhinaca kale ku suntanaayeen raggii hor istaaga wax ka bedelkii dastuurka iyo muddo kororsigii uu damacsanaa Saciid Cabdullaahi Deni ilaa hadda musharaxdooda uma hambalyeeyeen hogaamiyaha la doortay Saciid Deni sidoo kale kulan uu dhawaan Deni la qaatay dhammaan musharaxiintii kula tartantay kursiga ayuu diiday inuu yimaado Xasan Shire Abgaal ciidanka kooxdan taabacsan ee marka Puntland la joogo loo yaqaan Danab uu hogaamiyay sarkaalka reer Garoowaha ee la yiraahdo Jimcaale ayaa sidoo kale soo saaray laba fariimood oo ay ku diidan yihiin natiijadii doorashada shalayna mid ka mid ah kontaroolada laga soo galo magaalada Garowe ay ciidankaas qabsadeen waxaa la sheegayaa in odayaal dhaqan oo reer Garowe ay dhowr jeer la kulmeen kooxda Aranjan iyo musharaxdooda Xasan Shire Abgaal si ay u qanciyaan inay natiijada aqbalaan sugaana waqti ay munaasab tahay in maamulka Saciid Deni la mucaarado walina kuma aanay qancin midaasi sidana loo xaqiijiyay waxaa la sheegay in kooxdu ay aaminsan yihiin in wixii dhacay aanay doorasho ahayn Xasan Shire Abgaal iyo kooxdiisa Aranjan ayaa dhammaan ka soo jeeda magaalada Garowe waxayna 100% aaminsan yihiin in tira lagu sii socon doono oo kalkan kursiga laga leeyahay magaalada Garowe dadka siyaasadda Soomaaliya ka faalooda ayaa godoodka Aranjan uga dhex jeeda fariin kale kooxdu waxaa la aaminsan yahay inay sugayaan halka uu ku dhamaado khilaafka madaxweyne Xasan Sheikh iyo hogaamiye Saciid Cabdullaahi Deni waxay fahamsan yihiin in haddii uu sii taagnaado khilaafka Xasan iyo Deni inay jirto fursad ay wax kula yeelan karaan Xasan Sheikh oo aan laga maarmi karin maadaama aanay jirin cid iyaga uga dhib badan Saciid Deni madaxweyne Xasan Sheikh iyo Saciid Deni ayaa loo weyn siday u wajihi doonaan xiisadoodii taagneed muddooyinkii la soo dhaafay haddii khilaafku uu dhammaan waayo Xasan Sheikh wuxuu ku khasban yahay inuu helo koox jilba culus oo reer Puntland laba koox oo culus ayaa ka jirta deegaankaasi mid waa Aranjan oo xisaab ahaan wax ku heli karta marka hanaanka beelaha la fiiriyo sidoo kalena koox isku xiran halka ay kooxda labaad tahay ururka mideeye iyo hogaankiisa oo Madiano oo gadaal ka taagan yahay Boqor Burhaan balse kooxda labaad waxa uu leeyahay inay Saciid Deni ku xisaab yihiin xagga wax qaybsiga inkastoo madaxweyne Xasan Sheikh Saciid Deni iyo guud ahaan dowladnimada Soomaaliya uu wanaagsan tahay inuu khilaaf ka dhamaado oo danta guud laga shaqeeyo haddana kooxda Aranjan waxaa loo badinayaa inay u dhakanayaan fursada federaalka gaar ahaan haddii Xasan Sheikh iyo Saciid Cabdullaahi Deni isqaadan waayaan markale magaalada Muqdisho waxaa shalay ka dhacay kulan looga hadlayay heshiiskii safgaradka ee dhexmaray Somaliland iyo Ethiopia wuxuuna u dhaxeeyay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo qaar ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda gobolka Awdal ee ku sugan magaalada Muqdisho kulanku sidoo kale goobjoog ka ahaayeen laba senator oo iyagana ka soo jeeda gobolkaasi ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay dadaalada dowladda ee ka dhanka ah heshiiskii Ethiopia ee Somaliland ee badda cas deeqa Xasan Xuseen oo gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha ee aqalka sare iyo senator Bilal Idris Cabdullaahi ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka
shirkan ayaa waxay labada dhinac ku soo bandhigeen xaaladda gobolka iyo dareenka shacabka ee kadib heshiiskii safgaradka ah ee ay kala socdeen Somaliland iyo Ethiopia. Sida uu BBC-da u sheegay Wasiir Axmed Macalin Fiqi, wasiirka ayaa sheegay in kulanka uu ahaa mid looga hadlayay dhibaato iyo cadaadis uu sheegay in lagu hayo bulshada reer Awdal iyo kaalinta kaga aadan dadka deegaanka go'aanada iyo tallaabooyinka ay dowladda qaadayso. Waxaan ka wada hadlaynaa in dadka reer Awdal aysan wax ra'yi ah ku lahayn heshiisku sheegay Somaliland u siixday badda Soomaaliya iyo Ethiopia iyo in dadkii lagu hayo cadaadis iyo xarig joogto ah yiri. Dadka gobolka ee ka hor yimid heshiiska ayuu sheegay in si gaar ah loo beegsanayo. Waxaad ogtihiin in qaar badan oo ka mid ah mas'uuliyiin gobolka oo ay ku jiraan wasiiro hore, culimo diin iyo dhalinyaro heshiiska loo xiray, ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayuu wasiirku sheegay in mas'uuliyad gooni ah iska saartay dadka degan gobolkaasi maadaama uusan jirin maamul lagu haleeyay kadib heshiiska, sida uu hadalka u dhigay. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sidoo kale soo dhaweeyay sida dadka reer Awdal ay heshiiska u diideen, waxaana sheegay in wax walba ay ku garab istaagi doonaan bulshada gobolka. Dhowaan banaanbaxyo ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Awdal kuwaas oo looga soo horjeeday heshiiskaasi. Dad kasta oo lagu difaacayo dalka Soomaaliya waa noo furan tahay, shacabkana waa garab istaagayna, ayuu yiri Wasiir Fiqi. Senator Deeqa Xasan Xuseen oo iyaduna BBC-da la hadashay ayaa tilmaantay in kulanka uu ahaa mid looga hadlayay xaaladda gobolka Awdal iyo sida bulshada degan halkaasi looga talagelin lahaa go'aanada dowladda. Shirkan waxa uu ahaa mid odayaasha reer Awdal ay ku cadeynayeen mowqifkooda ku aadan damaca Ethiopia ee badda iyo sidii bulshada degan halkaasi codkooda loo maqli lahaa, ayay tiri Senator Deeqa Xasan. Waxay sidoo kale sheegtay in kulanka uu qayb ka yahay dadaalada dowladda Soomaaliya ee looga hortagayo heshiiska Somaliland iyo Ethiopia. Dowladda Soomaaliya dadaal badan ayay wadaa dadka reer Awdal meel walba ay joogaan, haddii ay ahaan lahayd koonfurta Soomaaliya, dibadda iyo Somaliland, go'aankooda waa mid waana inay difaacdaan badda, ayay hadalkeeda sii raacisay Senator Deeqa Xasan Xuseen. Heshiiskii safgaradka ee dhex maray Ethiopia iyo Somaliland koodii bishan kadib ayay dowladda Soomaaliya bilowday olole karnaawo dibadda iyo gudaha. Suldaan Abiib Sheekh Maxamuud oo ka mid ah odayaashii shirka ka qayb galay ayaa sheegay in wasiirka ay la wadaageen xogo hoose iyo dareenka ay qabaan dadka reer Awdal iyo inay taageersan yihiin go'aankii ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee lagu diiday heshiiska. Sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen banaanbaxyadii ay sameeyeen dadka gobolka ee ka hor yimid heshiiska. Gobolka Awdal gaar ahaan magaalooyinka Boorame iyo Lugaya ayaa waxaa dhowaan ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo heshiiska. Dhanka kale, faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal xalay saqdhexe ka dhacay gudaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaas oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab weerar xooggan ku qaadeen degmadaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka. Weerarka kadib ayaa waxaa xigay dagaal toos ah u dhexeeyay labada dhinac, kaas oo dhaliyay khasaare kala duwan. Ilaa dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in dagaalka uu qaatay saacado badan, ayna maqlayeen rasaasta ay isweydaarsanayeen labada dhinac, taasi oo cabsi ku beertay. Saraakiisha militariga Soomaaliya oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa sheegay inay iska caabiyeen xubnaha weerarka soo qaaday, ayna khasaare gaarsiiyeen Al-Shabaab. Dhanka kale, ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda Al-Shabaab oo ku aadan weerarkaasi ee ay fashileen ciidamada dowladda Soomaaliya. Xaaladda ayaa saaka mid degan, waxaana goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo howlgalo ka wada halkaasi. Qoryooley oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa badanaa weeraro ku soo qaada maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaas oo geysta khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh. Dhanka kale, Mareykanka ayaa war cusub ka soo saaray heshiiska muranka badan dhaliyay ee koodii bishan wada galeen Somaliland iyo Ethiopia. Aqalka cad ee Mareykanka oo haatan soo farageliyay heshiiska labada dhinac ayaa caddeeyay inuu ka soo horjeedo maadaama uu xadgudub ku yahay Soomaaliya. Waxaan taageeraynaa Soomaaliya iyo madax bannaanidooda dhuleed, waana in la ixtiraamo,
ayuu yiri John Kirby oo ah isuduwaha xiriirka golaha amniga qaranka Mareykanka. John Kirby ayaa shaaca ka qaaday in heshiiskaasi uu horseedi karo xasilooni darro iyo in la carqaladeeyo dadaallada caalamiga ee lagu hortagayo waxa loogu yeerayo argagixisada. Sidoo kale waxay intaasi ku sii dareen aqoonsiga Itoobiya siiso Somaliland uu halis gelinayo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee haatan ka socda dalka. Dhanka kale waxa uu hoosta ka xariiqay in gobolka Geeska Afrika uusan xilligan xamili karin colaad kale maadaama ay jiraan dhibaatooyin muddo dheer lala soo halgamayay. Ma aaminsanin in gobolku awoodi karo colaad kale, uma malaynayo in heshiiskiisa afgaradka uu socdo jihada saxda ah mar kale ayuu yiri John Kirby. Mareykanka ayaa horey u cadeeyay mowqifkiisa ku aadan xadgudubka Itoobiya isagoo si cad uga hor yimid heshiiska badda ee 18 lagu gaaray magaalada Addis Ababa. Arrimahan ayaa ku soo aadayo iyadoo 18 bishan la wado inuu dalka Uganda ka dhaco Israel dal igad ka yeelanayaan arrimaha soo kordhay gaar ahaan xiisada ka dhalatay heshiiska Addis Ababa uu shirkaasi iska diiday dowladda Itoobiya. Muuqaalkan intaas ayuu ku yahay muuqaal xigeentaan kulmi doona sidaas nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.